السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سد كيميكو سود هذا وكابي أونلاين سcientific subjects. هنوجو forms of carbon chemistry فصل كفون فورك 10 كأنه هراء. وحكسو برناي organic chemistry قاعتان كيسا يو قابكا وسميس ميان وحلا هذا electron configuration كاربون كونقاضني أنا وكفرنيني ground state كا يو electron promotion يو hybridization. ما تحب قادننا قيبت لهذا forms of carbon هوب ككربون كوسم اسمه. there are واحد جرا اللي different forms هوب كذا دون of carbon كربون كوس that كستي كاسو كربون جيل له الكرو because of the unique صوبت نحيت هاي because of حنكيني وعنت هاي the unique bond ندور كجاركا of this element عريان. this forms هوب كان أرنا سحلوي قنا allotrophies. there are واحد جرا three forms هوب سد حب أو اللي هاي كربون كله الكرو sababto ay tahay unique bond gaarka dabarka cilmiyan uu leeyahay. These forms habkan waxa loo yaqaan allotrophies marka waxa lagu qeexayaa different forms waa hab kala duwan. Allotrophies-ka different forms waa hab kala duwan of the same element isla curiye based on ayadoo loo fiirinayo unique bond dabarka gaarka bond arrangement qaabka gaarka ee dabarka loo habeeyo. Allotrophies of the element curiyaha must be waa inay noqdaan in the same phase xaalad hal xaalad isku mid ah inay ku jiraan oo gas ama liquid ama solid ah. The term eriga allotrophy original asal ahaan comes from waxa laga keenay the Greek word is eri Greega allos meaning macnaheedu tahay other kale anthropos meaning tahay macnaheedu tahay manner xaalad tasada marka the other manner marka la soo qabto marka allotrophies waa the other manner xaalad kale for forming of the same element isla curiga ku sameysmi karo oo carbon tusaale carbonka there are three main allotrophies sida oxygen ko kala formo marka dhiganayn allotrophies kiisa soo qaadanayna way wala sida allotrophies diamond graphite backbone diamond kada ka bilaawno diamond waa diamond-ka shayga ugu adag ee dhulka laga heli karo way has structure wuxuu leeyahay qaab dhismeed weerarkaas oo carbon atoms ku dhisada carbonka are all bonded dhamaantood ay dabareeyeen inta tetrahedron network shabakad afar geesoola so that saturated is the essence waxaa dareen ahaan one large molecule isku dhis marka aad u weyn that tetrahedral network shabakada afargeesolaha gives the molecule isku dhiska xisinaysa strength xooganaansha the figure 2 below sawirkaas ka muuqaasho wuxuu tilmaamayaa the structure qaab dhismeedka of diamond node waxaa dogtaa the individual tetrahedral kasta that join together kuwaas isku biireen to make say u sameeyaan diamond structure waxay sameeyaan marka diamond structure ka fiirso waa qaab cusub marka tetrahedron afar geesood u sameeyay yahay that tetrahedron kasta isku biiray waxay sameeyay marka one large molecule ka sar u weyn ay sameeyay marka okay because sababtan waxay tahay this structure qaab dhismeedkan diamond is extremely hard si aad u adag yahay and also known as sidoo kale waxa loo yaqaan to be inuu yahay poor conductor gudbiye xun ilaashiyaasha marka xagga gudbinta marka laga fiirinayo waxa loo qiimin jiray bad conductor iyo good conductor bad conductor magaca kale la siin jiray wuxuu ahaa poor conductor gudbiye liita of electricity korontada macnaha xagga gudbinta korontada ayuu aad ugu liitaa bad laakiin se warka lagu laabay excellent good conductor of heat aad wuxuu gudbiyaa marka kulka with a structure qaab dhismeedka of diamond each carbon atom curiye kaste ama carbon kaste uses wuxuu isticmaalayaa all of its four valency electrons afartiisa electron ay kaaftoono the interlocking structure ka isku xiran seen in diagram lagu arkayo is evident wuxuu marka daliil u yahay waadic u covalent network shabakad marka covalent means sharing network solid and this is the reason why sababta for the structure qaab dhismeedka strength wuxuu leeyahay and also sidoo kale it's high melting point barkaraarkiisa aad u badan tahay diamond in fact xaqiiqatan diamondka has the highest melting point wuxuu leeyahay barkar aad u sareeya scale-kiisa gaaraya 3850 Kelvin qiyaas ahaan u dhiganta 3547 Celsius u dhiganta qiyaas ahaan 345 Celsius 3454 Celsius afwan graphite is the second allotrophy of carbon allotrophy labaad ee carbonka uu leeyahay as unique structure wuxuu leeyahay qaab dhismeed gaara as well si lamid ah is soft flake and appearance waa mid jilicsan muuqaal ahaan madow that we will associate the benzene lead of shadows kaasoo marka inta badan lala xiriirin karo shayga benzeneska loo isticmaalo beautiful covalent network shabakadii qaab ahaan uu yahay fargeesoola ah the figure 3 shows sawirka saddexaad wuxuu ku tusinayaa structure graphite The structure consists of wuxuu ka kooban yahay hexagonal carbon rings
wareegyo kaarbono oo lix geesoolaadyaal ah bonding together in sheets kuwaasoo markaa isku qabtay xagga sheet ahaan wareeg. These sheets are then kadib layered waxaa ku rasan waa la kabaysay marka lakab isku saareeyahay. It is this layering that gives graphite this ability to be lubricants. marka layerkan lakabkan waa midka siinaya graphite-ka awoodda uu ku macnaha ku silidoobi karo. Weak intermolecular force xooga isku haya dhiyutu waxaa keena decollized electronada go-an macnaha free electronska ah that hold sheets kuwaas isku haya together. marka electrons marka waxaa jira localized electrons decollized electrons. localized marka waxaa isticmaala shayga single bondska decollized marka waa kuwa bi bondiga ama midka mobile movementska electronka zaidka uu ku jiro. With the graphite the carbon atom hexagonal structure only 3 of the 4 electrons mid kamid ah 3 electron afartan 3 kamid ah in the outer shell ayaa wuxuu ku dhagaya marka midka koowaad ee kore insha Allah taala 10 ka labaad halkan ayuu nagu dhayahay.